shirkani ayaa socday muddo 2 maalmood ah waxaana ka soo qayb galay khubaro ka socotay dalalka caalamka waxaana intii uu socday lagaga hadlay sidii dunidu iskaashi uga sameyn lahayd dhinacyada dhaqaalaha iyo tamarta wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa shirkani muddadii uu socday kulamo gaar ah la yeeshay khubarada shirka ka soo qayb gashay si uu xoga waran uga siiyo kheyraadka dihin ee dhinaca tamarta iskaashiga dhaqaalaha ammaanka iyo ilaalinta deegaanka ee Soomaaliland wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa la wadaagay xubnihii shirka ka qayb galay qoraalo ka waramaya kaabayaasha horumarka Soomaaliland sida dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda maalgashiga ka faa'iideysiga tamarta laga helo qoraxda dabaysha iyo doorka ay qaadanayso ilaalinta deegaanka ee Soomaaliland geesta kale shirkan oo war-saxaafadeed laga soo saaray waxa lagu sheegay in lagu soo bandhigay xalal cusub iyo xanaan hormuud ah si loogu dhiirigeliyo isbeddelka abuurayana jawi sahlan iyo habka deegaanka si loo helo kobcitaanka cagaaran oo wax ka qabta baahiyaha hadda iyo mustaqbalka shirkan ayaa lagaga hadlay 3 qodob oo kala duwan hoggaanka iyo ka qaybgalida bulshada green capital iyo tiknoolajiyada casriga ah dhinaca kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa kormeer ku tagay safaaradda Soomaaliland ee Dubai waxaanu kulan la yeeshay wakiilka Soomaaliland u fadhiya wadanka isku taga Imaaraadka Carabta Yaasiin Hirad waxaanu uga xog waramay shaqada safaaradda iyo kaalinta ay ku leedahay horumarka dalka Cabdishakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa